السلام عليكم soo dhawaada kusoo dhawaada Ramla in the kitchen asxaabtayda meel walba aad joogtaan waxaan idinka mahad celinayaa sida quruxda badan aad mar walba ila socotaan maanta maxaa noo wadaa waa bris sidii lasaanyadii loo kariyay cheesekiisa maasha Allah bechamel sauce wax ka maqan ma lahan daawasho wacan baanka waxaan ku shubanayaa saliid waaye waxaan ku darayaa hal xabo oo basal weyn aan yar yar u soo jarjaray basashaas aan rabaa wax yar bagaga inaan ka siiyo zaaidna uma guduudinay booska saliida waxaad isticmaali kartaa butter waxaad isticmaali kartaa subag wixii aad jeceshahay oo markaad haysid waa kana basashi wax yar aan hadda dabka u daayay diyaar waaye saan ka rabay waxaan ku darayaa sanjabiil waaye aan soo xoqay inta waxay ugu jirta toon aan xoqay iyo huruud saddexdaas maasha Allah cuntada testi fiican u yeelaan saddexdoodii hadda waan ku daray waan ku walaaqayaa waxaan rabaa inay isa soo qabsadaan ayaka basasha iyo saliidii wax yar ayakana bagagac ka wada siinaya waa kana hadeertaan waa is dhexgeliyay diyaar waaye halahaas waxaan ku darayaa hal xabo barbarooni cagaar waaye aan soo jarjaray waxaad ku dari kartaa guduudka ama jaalaha labadaba wax dhiba ma lahan intaana hadda si fiican isku dhexgelinaya waxaan rabaa inay xoogaa dabka qabsadaan zaaidna uma shiilay intaan hadeertaan waxa waaye ready waxaan ku darayaa chicken boneless waaye waxa waaye doorada steak waaye ama jirka tan laf la'aanta ah intaas aan hadda is dhexgelinayaa carfiskii yaraa aan ku daray iyo barbaroonigii basashii iyo dooradii ama digaagii alaab yaro iska simple ah waaye waa isla arki doonaa ya waa kana hadeertaan wax yaraan dabka u deynayaa waa isa soo dhexgaleen hadda waxaan ku darayaa hal qaando yar cusbadan dhexgelinayaa chickenkii wax yaraan dabka u deynayaa waxaan rabaa intaan inay isku bislaadaan waa kana hadeertaan waxaan sameynayaa xoogaa ayaan dabka u deynaa then wixii kale aan ku dari lahaa aan ku darayaa inta waxaan ku haystaa cooking cream waaye cooking creamkana isticmaalaya aniga waxaan rabaa wax yar oo sauce inay ugu yeelo haddaad markaa cooking cream hayn dhib ma lahan waxaa isticmaali kartaa yogurtka plainka ah caano garoora isticmaali kartaa waa kaas ahay ya cooking creamka markaas haddaad haynin halahaasaa ku bedelan kartaa ama waxaa u dayn kartaa plain adoonba ku darin waa iska dayn kartaa chickenkaaga saasuuba diyaar kuugu yahaybo wax yariis oo waxaa ku dhibicsan kartaa biyo yar oo meel dheer ah wax yar oo suugo ama soos kuugu yeesho haddii kale ayogad iyo waxaas aa haysid ama cooking cream ku darso hadda waxaan ku darayaa waxaa waaye wax yariis oo ujeedaan qaadada afkeed oo ah food colorkaas waxaan ka rabaa kalarka cooking creamka uu cad yahay yogurtka cooking creamka markaa ku dartid waxaa waaye chickenka white wuxuuga kusoo baxaya anigana sooska whiteka ma raba inuu kusoo baxo waxaan rabaa wax yariis oo maasha Allah ah waa kana kalarkan waa ujeedaan yaa chickenkii cooking creamkii iyo food colorkii wax yariis u ahaaya food color badan ma ku darin intaas si fiican isku qabsadeen maasha Allah wax yar aad dabka soo saarneyd diyaar waaye way soo karkartay way isa soo dhexgaleen ayakii dhan wax hadda ka maqan malaha waxaan kaliya ku darayaa ku garnish gareynaya ama korka uga shubayaa kabsar le waaye foo carfiska leh iyo qurxin hadda dabkan ka daminaa ha iska qaboobo waxyaabaha kale aan sii diyaarsanayaa waa usoo noqonaynaa diyaar waaye halkan waxaan ku haystaa butter waaye 2 qaado oo waaweyn butter ah butterka haddaad hayn markaas waxaa isticmaali kartaa dhib malahan subag hadduu ilaahay ka raali noqdo butterkan rabaa wax yar inuu ii dhalaalo waa kana butterkii waa soo dhalaalay after dhalaal waxaan ku darayaa 3 qaando oo bur ah burka isticmaalayo burkeena caadiga waaye sabaayada iyo laga sameeyo mala waxa canjeerada ma ahan burka oo khamiirka iyo waxyaabahaas ku jira ama bur kale hadda burkii iyo butterkii aan isku walaaqayaa inay isku kay dhexgalaan rabaa waa kana saanu ku soo baxay butterkii burka markay is helaan waxa waaye adeega sheekada isku bedeshaa
burka daa hal qaado ku dartid laakiin adeeg badan iskuma bedelayo yaa xoogaa uu intaa un kasii khafiifsanaana laakiin anigaa rabay 3 qaado sababta waxaa waaye bashameelka sooskaan rabaa xoogaa badan inuu ii noqdo qiyaasta aan sameynaya intaas ah waxaan hadda ku darayaa batarkii burkii waxaa waaye caano kulul waaye wax yaraa marka hore ku daray caanaha waxaa waaye 4 koob yaa bashameel sooskaan hadda sameynaya waa ila socotaan aan filaaya asxaabteyda markii hore batarka 2 qaadaan ku shubay digsiga ka bacdi 3 qaado bur ah caano kulul wax yar waa kana hadda halihii kalaan ku darayaa caanaha intaasaan isku walaaqayaa si fiican aan isku dhexgelinaa burka lama rabo burbur inuu haro ka noqdo ama burtuq marka waa ujeedaan aadan u whisk gareynoyaa yaa marka whisk gareysid ama micnaha khastid si fiican u khastid maasha Allah burtuq kaama noqonayo waa kana ujeedaan waan soo qasay yaa si fiican aan waxaan ugu walaaqay spatulada waa kana hadeertaan waxaan ku darayaa wax yariis qaadada afkeeda oo cusbo ah haddii kale tasteless uu noqonaa mooho intana waxaan ku haystaa nutmeg ama waxaa waaye jos marka waxaan ku daray xoogaa waxaan kaloo ku darayaa inta ku haystaa black pepper waaye ama filfil sooska waxaa soos yar iska simple ah waaye sooskan diyaar waaye hadeer wax kale oo aan ku darayo extra ma lahan intaana isdhex gelinayaa dabkan wax yariis u deynayaa ilaa iyo 2 daqiiqo inuu isku imaado la rabaa soos noqdo then ready waaye wax kale aan ku sameynayo ma lahan oo lagu darayo oo u baahan yahay ma jirto white sauce-ka intaas baa shaqadiisa hadda dabkan ka daminayaa waxaa ahay iska qabooba asagana waan daboolayaa waxaan u gudbeynaa qaybta briiska hadda inta waxaan ku haystaa waxaa waaye biyaha ma cabirin waa iskaga shubay waxaan ku darayaa cusbo 2 qaado biyaha waxaan iskaga shubay briiska inaan miiraan rabaa marka maadaama aan miiraayo waxba biyaha uma qiyaasanin waa iskaga shubale intan spiceska aan ku dari laan ku haystaa waxaa waaye qorfo tan waxaa waaye sanjabiisha oo dryga ah qalalan waaye inta waxaan ku haystaa dhagayaro waaye asagana dhowr xabo intaasaan isticmaalayaa spiceska maanta meesha ku jirto inta waxaan ku haystaa waxaa waaye bay leaves oo dryga ayadana ah iyadoo qoyana daa haysto isticmaali kartaa heel aan ku darayaa waa kana dhowr xabo waaye finally inta waxaan ku haystaa xawaaji dhudhub intaasaan isticmaalayaa maanta spiceska oo borderka ma isticmaalayay halahan lenka isticmaaloya noolka waaye maanta sheekada inta waxaan ku haystaa briis waaye oo aan soo dhaqay briiska qiyaasta marka xaafadaada adig karinaysaa familkaaga ku filan ada taqaanid maho yaa familka duwan yahay duu family yar yahay qiyaastii markaas guriga laga cunaayo ama aad karsataan intaana hadda isku walaaqay waan isdhex gelinayaa briis cad oo la miiraayo waaye waa miiri rabaa sidii baasta camal yaa half cooked aan rabaa inaan ka dhigo زايد uma bisleynay waxaan ku darayaa waxa waaye saliid waxaan ku darayaa marib inuu isku dhagdhaga briiska waxa waaye furfur aan ka rabaa oo aan zaaid u bislaanin waxaan bisleynayaa ilaa 80% yaa 80% inuu bislaado inta kale waxa waaye lama bisleynayo oven la gelinayaa waa kana uu soo karkaray briiskii iyo spiceskiisii cusbadiisii saliidiisii stagekii aan ka rabay hadda uu ku taagan yahay sidii aan rabay uu yahay waa kana mana bislaanin cayriin oo sax oo sidii heer laga soo qaaday weelkiisa laga soo bixinayo ma ahan meel dhaxawaay 80% waay hadeertaan waa miiraya waan ka dejinayaa marka miira baasta miirkan ku miiraya ka bacdi waxaan iskugu imaaneynaa miiska saan iskugu dardari lahaa everything inta waa kana waa chickenkii bechamel sauce-kii briiskii inaan isku dardarna leenoo hartay maaho haddana aan isku dardarnay asxaabteyda halka weelkan aan ku haystaa waxaan ku shubayaa marka hore aan ka bilaabayaa layeryaasha bechamel sooskan u hoos marinayaa waa kana sooskii waa ujeedaan sooska suu kusoo baxay maaho waxyaabihii dhan aan soo karkariyay chickenka sooska kulli wax u baahan in lasoo kulkululayo malahan isku dardar leh waa sheekada isku dardarana ovenkan gelinaynaa waa ila arki doontaan saa u sameeyo hadda weelkii aan ku shubooyaa sooskii aan ku bilaabay dhinac kasta waan ka gaarsiinayaa asaa loogu hoos marinoyaa waa kana everywhere every side
haddaa rabtid sooska wax badan aa ku shuban kartaa, haddaa rabtid light aa ka dhigi kartaa, macnaa wax yar aa ku shubi kartaa soos badan haddaad rabin. marka haddaani intaasaan ku shubay diyaar waaye. dhinac kasta waan ka gaarsiiyey. waxaan sameynayaa sooska dhinacana dhiganayaa, qaybta bariiska aan u gudbaaya. bariiska waxaa waaye aan biyaha cad spiceska kusoo kariyay aan soo miiray. waa kana bariiskii waa ujeedaan umaleynaa suu furfur u yahay, waa kala ordooya, waa kala daadanoya, wuu sheekeynaya ya caadi maa cajab aad u furfur u yahay because zaaid uma bislaanin. 80 ahaanan kariye, boqolkiiba 80 adi 80% ya. sooskii hoos wuu iigu jiraa waa ujeedaan. hadda waxaan ku shubooyaa waxaa waaye bariiskii. waa kana very simple waa cuntadan maasha allah yaa alaabaan caadi ahayn. waa haddaa karsatid waxaa waaye lasagna camal, bariis lasagna la iska dheh ya. ani bariis lasagna u bixiyey magaceeda. waa kana bariiskii hadda sooskan ku kor shubay, dhinac kasta waan ka gaarsiiyey. bariiskii dhinacana dhiganayaa. next maxaan ku xijinayaa waa chickenkii maasha allah aan cooking creamka kusoo kariyey oo macal sooskiisii watay. waa kana chickenka qurux uu kusoo baxay, waa ujeedaan kalarkiisa ya very colorful uu kusoo baxay cajab. haddaa rabtid cooking creamka ama yogurtka kulli waa ka dayn kartaa, laazim ma ahan. laakiin ani ahaan waxaa waaye markuu sooska leeyahay maasha allah ah, ilmaha xataa ma dhibaayo iyo dadka waaweyn. hal mar luu dhuunta yaa muluq uu ku dhahaa. waa kana dhinac kastaan uga soo shubay chickenkii diyaar waaye. sooskiyo hoose, bariiskiyo ku xiga, chickenkiyo hadda ku xiga. then maxaan chickenka ku xigsiinayaa oo aan ku shubayaa waxaa waaye cheese. waa kana cheeseka. cheese haddaad markaa haynin dhib ma leh, waxaa waaye gas u sii, wax uu kala maqan yahay male. abaarahan ma aragteen maasha allah. cheese or without cheese labadaba waa soconaya, cajab waaye. try garee iga qora maasha allah ya very wuxuu kusoo baxay delicious maasha allah. waa kana dhinac walba hadda waa uga shubay cheeskii, waan ku dhameeyey. chickenka korkiisaan cheeska ku shubaya, layeryaasha saasaan iskugu xijinooyaa. hadda waxaan sameynayaa aan soo celiyay, aan soo qaatay bariiskii. waa haddana haddaa rabti intaas waa ugaga hari kartaa. bashamel sooska hoos, bariis, chicken, cheese, haddana bashamel soos korka haddaa uga shubatid maasha allah. laakiin ani intaa ugama harine waxaan kusoo celiyay mar kale bariiska ya. bariiska waa kana haddana mar kalaan soo saaray, waa usoo dambeysiiyey chickenkii, cheeskii, bariisaan ku xijiyey. then maxaa ugu dambeysiinaa halkaan hadeertaan layerka waxaa waaye bashamel sooskii. waa kana waa ku shushubayaa. haddaa adiga jeceshahay markaa qaybta chickenka maraysay waa istaajin kartay oo intaad cheeska ku shubtay ovenka gashatid dabooshid maasha allah. laakiin ani waxaa waaye layeryaasha badanaa rabay, inaa dabaqyaasha. marka hadda dabaqan waxaan ku shubooyaa ujeedaan waxaa waaye bashamel sooska. qaandada weyn dhinacaan iska dhigayaa, qaandadan yaraan qaadanayaa. waxaan sameynaa dhinac kastaan ka gaarsiinaa. qaandada weyn waxaa waa xoogaa dhooka waa way dheertahay mooho ya, waa balbalaarantahay ayada dhan, balbalaarka waaye. marka waxaa la sameynaa qaadadan oo dhuubta yariista aan sooska dhinac kasta ka gaarsiinayaa. bariiskii inaan ku daboolaan rabaa, kham ku siiyo. waxaan filayaa asxaabteeda in ay la socotaan oo aada uga heli doontaan alaabtan yarta ah, simboleka ah. diyaar waaye hadeertaan. waxaan ku shubayaa finally mozzarella cheese ya. cheeska waxaa waaye macaan uu ka dhigayaa, quruxuu ka dhigayaa maasha allah. dabka markaad u daysid xoogaana crunchy uu yeelanayaa, very tasty ya. korkaan uga shubayaa cheeska hadda mozzarella cheeska. adiga markaasaa jeceshaa u leeyar garayn kartaa ama u dabaq siin kartaa. aan laakiin dabaqyada saanaa ka dhigay. waa kana waxaa waaye bashamel sooskii, bariiskii, chickenkii, cheeskii, bariiskii, bashameelkii iyo cheeskii ugu dambeeyay hadeertaan ya. intaasaan isa saarsaaray, diyaar waaye. waxaan rabaa hadeertaan inaan foil ku xiro oo afka kaga xiro xoogaa. toos uma gelinay, toos haddaan u geliyo bariiskii iyo wixii isku huurin cheeska kaa gubanaya isla markii dabkaa qabanaya. marka foilkan aan qabanayaa, dhab aan ku siinayaa dhinac walba waa uga xirayaa.
markaan ku dado oon diyaariyona waxaa waaye waxaan gelinaa ovenka waa kana diyaar waaye ovenka 180 uu ku joogaa waxaan u deynaa 50 daqiiqo kabacdina isku soo noqonaynaa suu kusoo baxo waa kana waan kasoo bixiyey saanu kusoo baxay maasha allah layeryaashii briiskii sooskii chickenkii cheeskii bechamel sooskii wax ka maqan malahan kor waa ujeedaan maasha allah wax yar oo qurux badan uu kusoo baxay lagama sheekeyn kara caadi ma ahan testigana anaa noo testi gareeyey yaa maasha allah very test xaafadana way ka heleen idinkana try gareeya insha allah like subscribe comment and share daawasho wacan asalaam